waaya Ibrahim soo dhawow faahfaahin waxaan na siisaa dagaalkan ka socda deegaanka Bukurre oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. dagaalkan waxa uu yimid kadib markii ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo la socdo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cusmaan ay weerar ku qaadeen saaka deegaanka Bukurre oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay maleeshiyada al-shabaab isku urursanayeen markaasina ku dhibaateynayeen dadka reer miyiga ah halkaasi markaasi degan dagaalkan waxa uu ahaa mid oo markaasi ciidamadu ay ku baacsanayeen maleeshiyada al-shabaab waxaa markaasi lagu dilay tiro ka mid ah maleeshiyada al-shabaab markaasi hub loogu furtay waxaana sidoo kale isku sheegay in la 4 qof oo ciidanka dawladda inuu ku dhaawacmeen dagaalada kaas oo halkaasi ka dhacay xaaladda hadda way degan tahay boobihii lagu dagaalamay waxaa loo wareegay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo dadka deegaankiina markaasi ka helay xogo kala duwan saraakiisha gobol qaarkoodna waxay sheegeen in howlgalkan uu yahay mid sii socon doono isla markaasina maleeshiyada al-shabaab looga saari doono dhammaan deegaanada waqooyiga gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. waayahay qasaaraha ma la og yahay qasaaraha saraakiishu waxay sheegeen ilaa 8 ka mid ah maleeshiyada al-shabaab in dagaalkaasi aroortii hore dhacay ee lagu dilay maadaama al-shabaab ay markaasi xog badan ka haynin dhinaca ciidamada markaasna si gaalmaa loogu tegayo halkaasi degan oo markaasi iska degana laakiin aan wax xooga markaasi keen marka dagaalku wuxuu yimid markii ciidamadu weerar ku qaadeen oo al-shabaab markaasi ay isku urursanayeen muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo al-shabaab laga soo saaray deegaanada hoos yimaada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo halka ay deegaanka Bukurre usoo guureen laakiin saakay aroortii hore ciidamada oo la soo gudoomiyaha ayaa ku jarmaaday halkaasi looga dilay waxaana ka baxsadeen goobihii iyo markaasina ka carreen waxaana hadda sida ku sheegay deegaanka ku sugan Bukurre ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba gudoomiyaha gobolka Hiiraan. waayahay cidda hogaaminaysa dagaalka ee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya yaa waay ciidamada saraakiisha oo qeybada kala duwan ayaa kamid ah waxaana kamid ah gudoomiyaha gobolka la soo sida ku sheegay iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka marka howlgalka muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ku jiray dhinaca Matabaan laakiin waxaa moodaa inuu u soo wareegay dhinaca degmada Maxaas iyo waliba deegaanka Moqokuri ee gobolka Hiiraan oo ashaab inta badan deegaanada si fudud Malaysia ku joogaan dadkana ku dhibaateeyaan laakiin gudoomiyaha wuxuu sheegay in howlgalkan uu yahay mid socon doono iyadoo dhawaan la qorsheynayo howlgal guud in gobolku ka bilowday ka qayb qaataan ciidamada AMISOM ee ku sugan gobolkan Hiiraan markaasina laga sifeyn doono deegaanada hoos yimaado degmada Buulabarde Maxaas iyo waliba degmada Matabaan iyo waliba magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan oo inta badan si Malaysia ku yimaadaan deegaanada hoos yimaado howlgalkanna waxaa si aad u soo dhaweeyay dadka deegaanadaasi maadaama inta badan dhibaatada al-shabaab ay ku hayaan